halkan waa magaalada Bariire oo xor ah in ka badan 120 ka tirsan khawaarijta ayaa nafta lagu dhaafiyay. waxaan ma ahan xoolo bahal u soo dhacay ama kuwa naqraaca ee waa khawaarijtii oo baxsad ah markii godadkooda loogu daatay qaarkoodna baaruudda iyo hubka kiisa culus lagu garaacay. sida aad u jeedaan markii godadka laga soo saaray waxay la baxsanayaan naftooda iyagoo weliba ka cararay qoryo iyo hub wixii ay wateen. ciidanka qaranka iyo saaxiibada caalamka oo si toos ah cirka iyo dhulkaba uga daba jooga cadowga ayaa gantaalkan la haleelay. waxaa halkan naftooda ku waayay in ka badan 20 ka tirsan cadowga, kuwo kalena dhaawac daran ayay dhulka la galgalanayaan. weli lagama daba harin, waxaana markaan lagu dhuftay gantaallo kale oo darandoori ah, kuwaas oo qaar badan oo ka mid ah dhulka la jaray. markaan jiha kasta ayaa ka soo xirantay khawaarijta. horay ayaga ayaa u jaray buundadii deegaankan, waxayna ku yimaadeen intii ay cararayeen webiga. dhinac kasta waxaa ka xiga ciidamada qaranka, korna waxaa kala socda diyaaradaha saaxiibada caalamka oo daqiiqad aanan ka kor tegaynin. halka waddo ee u furanna waa webiga oo aysan ka gudbi karin. cirka iyo dhulkaba waa laga rusheeyey. ma jirin hal khawaarij ah oo halkan naftiisa kala baxsaday. guushan ciidanka qaranka waa u cibaado, khawaarijtana waxaa looga aargudayaa shacab badan oo maato ah oo horay ay dhiiggooda ugu daadiyeen si macno la'aan ah. geesiyaasha ciidamada qaranka waxay sidoo kale nolosha ku qabteen qaar badan oo ka mida maleeshiyaadka khawaarijta, kuwaasi oo calaacal iyo cataw afka furtay. intaa laga soo qabtay qorgaadaw qorgaadi amirkiinaaw haye ma dhaawaca tahay haye hadda maa lagu keenay mise mar hore imaadeen yah intaa laga keenay okay meeqa ahaydeen 300 maa ku joogteen magaalada. howlgalkan toddobaadka socday ciidamada qaranka iyo saaxiibada caalamka waxay ku guulaysteen khawaarijta inay ka saaraan guryo ku yaallay gudaha magaalada Bariire, kuwaasi oo qaarkood guryaha hoostooda ay ka qoteen godad waaweyn oo ay doonayeen in ay ku dhagraan ciidanka qaranka markii ay magaalada soo galaan. laakiin ciidamada qaranka oo hayay xogta dhagarta cadowga oo dhammaystiran ayaa god kasta oo ay khawaarijtu galeen ku holciyey. Bariire maanta waa xor. horjoogayaashii iyo maleeshiyaadkii khawaarijta ee soo weerarayna waxay noqdeen kuwo la laayay, kuwo nolosha lagu qabtay iyo kuwo dhaawacyadooda godadkii ay qoteen loogu daatay.